بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أنت واحد شغلنا مقالها جيجيجة عاصمتها دولة دجانكا الصومالية جيجيجة أيام شغلنا وحنا وديت كان ورئيسنا نلعب فريش الوايا فريش ودنيا ما تسوي فرح سومر طيب سؤال بك ويدينيا horta magaca ayaa inamada nooc ka hesha ilmada dheer hor dheer oo kuwa gaagaban iyo cida daqiiqa ma iyaga u taala ya qaar gaagaban doontaan ma tii wala loo salaamaya magaca farmashiin hore ma taqaan taageero weyn badan ahayd aad iyo aad ma ku salaamaya haddii lagu yahay maxaa inamada ka xiro nooc xulan lahayd mid badaar leh mid duuban mid gaaban mid dheer mid ballaaran mid gaaban oo ballaaran oo kaamiyad dulcaynaysa war tiraacada tama madaxa aad ma maasantay ogeysiis inamada burburan ee gaaban alla socdaan hablaha qaar baa jecel السلام عليكم waa kana قاسمين اللي انت waa kana بالله عبادك majaajilistay weynaa جيجيغا way ka shidan tahay saaxiibkii ما maad salaamaya ما انت جيجيغا way ka shidan tahay faarax iyo caws baa isku yimid wallahi ma sha يا قاسمين اللي انت waxaa liinay sameynaysa suuqii la isku yimay halkani waa caasimadii nabadda dadku rooshaamay leeyihiin baajaadku rooshaamay leedahay liintu rooshaamay leedahay sigaarku rooshaamay leeyahay bunku rooshaamay leeyahay dadku rooshaamay leeyihiin waa kaas dadweynahana daawan doona adduunka meel kasta ay joogaanba waxaan leenahay soo dhawaada sii dhawaada soo socda dhaantada inoo tuma shacabka maxaad faaraxtay halkan waxay salay biday saaxiibka faaraxtay saaxiibkay faarax burtiile iyo halkan ku kulan ruwaayadii horeysa halkan kugu dhiib halkay ahayd waxay ahayd muxuu ahaa imaaraadka waxaa loo jeexay qurquriye ayaa la oran jiray xaaji qorqor ninkii u dhiibay u horeysa ruwaadaan ahayd adeer baan ku adeer buu yahaa wallahi waan masaafuri halkii aan ku geeyay ka sheekee raashuu geeyay halkii una lagu geeyay inkaartiisi halkii raasheen lagu geeyay ka sheekee wallahi billahi فرح مرتولة مكين لندن شوقي دانتي جري هسجري دانتا ما ينواد هسجري ولفتقيسي قربة تكشيت مت تشاريتو والله اسكا قشر المقالة السلام عليكم عليكم السلام نعم عايزة هاد بام وهلا مشاكلوين كاغا هذه آد ما كوسو دوينيا صح فرح مرتولة برشونايس حبلها نوعيش عشاء حبلها waxaan jecelahay kolbatii hortimaada gebi oo waxaad tahay jacayl sabaynaya gebi boqorka jacaylkaana jacayl sabaynaya taasaan socdaa basaas waa laxnime yaa ku yiri yaa allah tahay noocisha inta kooda adeer ko gaagaban waxaan jecelahay gabdhaha soo ma jeedin habeen bataan la joogo bal heesku camal
heesku cabir inta jeceshahay gabadhyahay hamiga guurana lay hareer dhigay hindisa waxa igu wacan himila guurede haweeney haddaan elilaa gabadhanaan fiican jacayli ma hodeni ma hanteeni ma haleeleede ninkii 2,000 haystaa kalgacan آدي بنكون سلامة يا آدي الله يخليك تانك في المشوار أبو أمبادية أنا أبو رمي معنا تانك في المشوار تانك مي الله يخليك حدثنا علينا ساعة حكيلو بيا ينام كوشي لأن تقابل مسلا كل قبضة ما قبها هذا ده مكان حتى حاصلة ولا الملاعة محيدين وحدين عندنا كويدينو دولتك الصومالية بابليشك سويمسا بابليشنka dowladdeegaanka Soomaalida wallo tirkoob sax ah aan lagu hayn laakiin haddana waxa la qiyaasay inay ilaa dhowr iyo 10 keena kor u dhaafeen bal la qiyaasay milyan 10 milyan 10 milyan ka badan saas la qiyaasay wakaas su'aal kale aan ku weydiinay waxaad nooga sheegtaa wax deegaanka inta gobol uu yahay dowladdeegaanka Soomaalida dowladdeegaanka Soomaalidu waa 11 gobol iyo 93 degmo weeyaan iyo 6 ismaamul magaalo عاصمة جكشيغا عاصمة دولة الصومال هو مقالة جكشيغا أفكار لقاحنا أفكار يعني وحلو برتانا سومالي لغة اللغة برتاها واحد شفت اللغة جود ودل كلية هاي لغة داس أن كرير كلاس فصل كسيدات waxa lagu bartaa Soomaaliga marka loo gudbo form 1 ka form 2 ka form 4 ka waxa lagu bartaa waa luqadda Ingiriisiga wali qurba joogta waxa lagu bartaa magaalada Jigjiga iyo mashaariicda ka socota iyo maalgashadayaasha farax martilo horta aad baad u mahadsantahay waan kugu soo dhaweynaya magaalada Jigjiga caasimadda deegaanka Soomaalida walaal su'aal weydiisay wariyahanada isaga su'aalaha dadka weydiiyay isaga lagu weydiiyo adana aad kugu soo dhaweynaya magaalada Jigjiga run ahaantii muddadii uu isbedel ka dhacay deegaanka sidaan ogsoonahay oo Mustafa Maxamed Umar madaxweynaha deegaanka hadda oo talada qabtay isbedel ballaaran baa magaranaysa magaalada ku talaabsatay insha Allah dabaqyo badan oo magaalada iyo horumar aad u badan iyo dhismayaal badan baa lagu soo kordhiyay dadka dhismayaasha sameeyayna waa dad maalgashata oo dadka Soomaaliyeed deegaanka ka soo jeeday iyo daafaha kale iyo deegaanada kale Soomaalida ay degtaba waa dadka dhisanaya maalgashiga sameeyay waa dadka Soomaaliyeed aadna ugu mahadsanyiin marka qurba joogta aan deegaanka imanin ka haysta ma garanaysaa maqal wali ay noo suurto galinay timaado waxaan leeyahay deegaankiini soo dhawaada deegaanku wax badan baa iska bedelay lama horaan waa gurigaaga marka aad iyo aad baan maasintay maadaama aan barnaamij sameyn karaynin oo aan degdegsanaa oo aan safar degdeg ku yimi sida awgeed baan u soo dhex maray bulshadii Jigjiga si fiican way soo dhaweeyeen aad iyo aad mas'aalkanu waa Farmutida channel oo ka daawataan Farmutida laftiisa oo jooga Jigjiga dowladdeegaanka Soomaalida aad iyo aad mas'aalaanta assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh بسم الله الرحمن الرحيم maanta oo ay tahay 27 bisha tobnaad sanadka 2021 waxaynu joognaa caasimadda dawlad deegaanka Soomaalida magaalada Jigjiga waxa nagu soo booqday oo martin noo ah Faarax Caawil Jaamac oo aad u taqaanaan Faarax Murtiile ninka madadaalada iyo murtida maxaan ku yiraahdaa meel mariyay ee Soomaali oo dhan wada taqaano ayaa nala jooga hotel aan ku wada qabaynay Nadiira Hotel Jigjiga halkan waxa jooga Suldaan Maxamuud Axmed Beende
xildhibaan hore xasan maxamed timir cabdi cumar camuud iyo xildhibaan cabdi xaafid cali cabdi oo xildhibaanada cusub ee iminka laga soo doortay degmada gaashaamo waxaa kale oo jooga eges wasiir hore wasiirkii dakhliga dowlad deegaanka Soomaalida cabdiraxmaan maxamed aadan waa ninka cirifka fadhiya oo cirifeeya cabdiraxmaan caagana uu ku magac dheer yahay sidaas lamid ah waxa isna ku xiga xaaji mustafa cabdilaahi xaaji oo ganacsatada dowlad deegaanka Soomaalida kuwa ugu caansan waqtigan aynu joogno kamida dhinacaygan waxa fadhiya bidixda jamaal cabdiraxmaan ismaaciil sidaas lamida waxa dhinacayga midig fadhida mulkiilaha hoteelkan aanu ka qadaynay gabadhaanu abtiga u nahay nadiira cumar aadan faarax cawl jaamac faarax murtiile wixii aad oran lahayd adigay ku taallaa dadkaasi waa dadka maaragtay jigjiga aad ugu timid maanta wada qadayseen soo dhawow baan ku leenahay aad iyo aad soo dhawow waan mar kale mar labaad waan ku soo dhaweynaynaa adigaan kugu soo wareejinaynaa mikrofoonka iyo maxaan ku raabaa iyo wixii kale la socday hadal bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu calaykum warahmatullaahi wabarakaatu waxaan si sharaf leh oo kaliya laaba oo walaalnimo iyo dadnimo iyo maamuus leh u salaamaya uguna mahadnaqaya madaxda halkan igu soo dhaweysay oo kala ah xildhibaano wasiiro hore xildhibaano iminka ah ganacsatada inantan ganacsatada nadiira uleelkeedana joogno suldaan biinde aad iyo aad baan dhammaantiin idin wada salaamaya si ay soo maamuusteen ay soo sharafteen oo odayaasha ugu cuslaa dowlad deegaanka iyo magaalada jigjiga iyo dadkii ugu maamuuska weynaa oo dee iyagii oo dhan cidba kama maqnaa mar haddii xildhibaanadii iyo wasiiradii iyo ganacsatadiiba ay marayso iyo shacabkiiba dadku waa intaas kooban yihiin marka aad aad baan ku mahadnaqayaa bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waxaan leenahay soo dhawow abwaan waanu ku soo dhaweynaynaa aad iyo aad baan ku soo dhaweynaynaa waxaan leeyahay abwaankii isagoo maqan murtidiisuna deeqday ee muraadaha layska daawadiyo meelaha bulshadu ku kulanto naga madadaalin jiray baan maanta soo dhaweynoon ku casuunnay magaaladii jigjiga minankaagii waaye soo dhawow aad iyo aad waanu ku soo dhaweynaynaa si wanaagsan baanu ku soo dhaweynaynaa magaaladana waad dhex geli doontaa waa magaaladii dowlad deegaanka caasimadda aad iyo aad baan kugu soo dhaweynaynaa si farxad leh oo qalbi wanaagsan ayaanu ku soo dhaweynaynaa minankaagii waaye waxaan ku soo dhaweynayaa xildhibaan hore xasan timir bismillaahi raxmaani raxiim dhammaan waftidan qaaliga ee xafladda ka soo qayb galay iyo qadar sharafta aanu ku maamusnay murtiile faarax cawl jaamac waxaan idin leeyahay marka hore assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu intaa ka bacdi haddaanu nahay xildhibaanada bafiid kuwii hore iyo kuwa dambaba haddaanu nahay salaadiinta haddaanu nahay waxgaradka reer jigjiga haddaanu nahay ganacsatada dhammaan wasiiradii hore kuwa dambe annagoo intaa ka kooban waxaanu si maamuus iyo sharaf oo heer saraa aanu u soo dhaweynaynaa abwaanka weyne caankaa faarax cawl jaamac oo ku magac dheer faarax murtiile dee kolley waxay la tahay annagu tiifiig baanu ka daawan jirnay ninkii reexamare geela dhalayaarkii wuxuu yidhi cimrigaa igoo raagi geel dhalayana waa ku tusaa maanta cimrigaa igoo raagi dee faarax murtiile nala qadayana wuuna tusaye aad iyo aad baan u soo dhaweynan waxaa noo soo dhowow waa magaaladaadii waa waddankaagii waa dadkii aad abwaanka u ahayd murtidaadii iyo madadaaladaadiina aad iyo aad ayaannu yaryarka iyo waaweynkaba uga helnay waanaanu soo dhaweynan waxaanu leenahay insha allahu yaanu noqonina markii ugu horraysay
mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraadba waanu ku soo dhaweynaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.